بريبا أو بحلقا وراسو وادي بريبا أو بحلقا وراسو وعبور ورينا والتنكين وحبرتا والتنكين وحبرتا وحنبار واجبتي وحنبار واجبتي وهزنينو وابن مينو والوريق مينو وعن مينو وهزنينو وابن مينو والوريق مينو وعن مينو قولوا عن عدو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد الحمد لله إلهي بأم هذا السكالة سوكانا كان ماشان حفلدان قيمة إيو خير كبضان لوغا هذا لها يا أملوها يا وحبر الشضا ورمرك إلهي سبحانه وتعالى ونكم هذين هنا إلهي وحو ليها إلا إن شكرتم لأزيدنكم هداد يقول شكريان وإذين زيادين إلهي سبحانه وتعالى ونكون شكرينينا وحنقول شكرينينا نعمة إسلامك عافماتك برواقضة أولاد لعنتا ديغان كان هادان جوغنو هادان كسواناي انت عرض دبك دعيس قفكم دمان حلوما سوورين شدة كما جرتو dhibaatooyin badan oo jiro kama jirto ilaahay ku maadinayna hadaan ku maadino ilaahay wuu noo ziyaadin inta ka dib ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ka baqno shay kasta waxa muhiim u ah oo u horeeyo oo loo hormariyaa alla ka cabsiga xagga waxbarashada ilaahay baa ku maadsan horumarkan sidaad ay buraad tahay maadiyan wa diiniyan haday quraan tahay haday iskool tahay haday dhismaha tahay ilaahay baan ku maadinayna waxa ka dib maadsan dadka dhasho walaalena oo qurbada jiro oo dadaalayo oo barnaamijkan sameeynayo iyo inta odayaasha maamuleysaba bulshada reer Buraa waalidiinta kan sabay ardadooda weelmahooda waxbarashada waxa ay sitaan jaanis ka soo deysiyeen walaalihiina u istaagay inay idin waxbaran ilmihiina qof walbana meel jaaniskaas oo kale inaad hesho waxbarasho friya buugaag qalimaan hoy waxbarasho oo waxba laga rabin adduunka saas ma aha adduunka saas uu ka bedelan yahay waxaan dhihi lahaa marka haddii intaasoo nimcada maanta gurigiina aydu kugu timi waxaan leeyahay ka faa'iidaysta jaaniskaas ha laga faa'iidaysto qof walba oo maanta adduunkan joogo wuxuu haysta wuxuu ogaan doonaa wuxuu nimcada uu ku jiro maalinta uu waayo maanta jaaniskaad waa haysataan laakiinse waxaad garan doontaan haddii aad ka faa'iidaysanin maalintii aad weydaan intaasaan kusoo gaabinayaa aniga oo cabdullaahi xasan maxamed iskuulkan Buraa primary school waxaan kusoo biiray sanadii 2017 bishii 7 halkaas oo maamulaha uu ka ahaa macallinkii la oran jiray Sheekh Macala Cabdullaahi Sheekh Cabdi Maxamed Xayle muddo 3 bilood aan la shaqeynayay kadib Macala Cabdullaahi
wuxuu ii wareejiyey maamulka iskuulka primary school halkaasoon kasii ambaqaadnay 1dii bishii 1aad 2018 waxaan halkaas ku bedelnay systemkii hore ka jiray meesha oo ahaa 1 sano fasalkii waxaan ka dhignay 6 bilood fasalkii taasoon u aragnay in manhajka ardada ay dhammaynayaan muddo ka yara 1 sano markii aan qiimeynay kadibna waxaan isniri 6 bilood way ku qaadan karaan ardada halkii fasal waana isku daynay ilaahayna noo guuleeyay wayna noo rumowday waxaa noo suurtagalay inaan hadda gaarnay ardada 4 fasal oo 1aad 2aad ilaa iyo 4aad 1aad 2aad 3aad ilaa iyo 4aad sanad dugsiyeedkii taramkii 2aad ma hadda gelinaa imtixaankiisa haddii aan galno insha allahu tacaala shanaad inaan usii gudno waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo wixii 6aadka ka dambeeyay sanadkiisa inaan ku celino balse intii ka hooseyso maadaama ay manhajka buwaagta ay aad u yaryar yihiin ardaydan aad markii la fiiriyo ay qaarkood ay yihiin arday waaweyn oo qaadan karto inaan 6 bilood ugu wadno wixii ka hooseeyay galaaska shanaadka galaaska 6aad wixii ka koreeyana halkoodii sanaan ugu celina hadduu ilaahay yiraahdo systemkaas baanu ku wadnaa waxbarashada markii la fiiriyo run ahaantii buraa waxay noqotay meel ka muuqan doonta hadduu ilaahay yiraahdo gobolka waxaana tusi doonaa walaalaha iyo waalidiintaba inaan la tartanno gobolada qayb ka mida oo guul soo hoyno guul iyo guuldarro ilaahay baayo balse waxaan rajaynaynaa inaan guul soo hoyno markaasaad idinkana ku qanci doontaan ood ku laabqabuulsan doontaan hadduu rabbi raalli ka noqdo intaasaan kusoo gabagabaynaa hadal mar lama koobi karo aad baad u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. First, I am thanking generally and especially our creator. Secondly, I am thanking our parents for the golden chance they give us to be educated. I am also thanking to our parents, to brothers and sisters who are in the abroad for the possibility to give us the education, suitable environment to study, suitable curriculum. Students, I am saying, I wish you success. Everybody who take about our education, we have high hope, which is we will get high school education in our home. My God bless all of you. أقدم إليكم أيها الأساتذة والطلاب والضيوف تحية أحلى من العسل وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانيا أيها السيدات والسادة نشكركم على حفاوتكم وإشراككم معنا في هذا الحفل. ثالثا نشكر إخواننا في الخارج ونطلب أن يبلغوا لنا بركة وحمامات للمدرسة وكذلك نطلب أن يبلغوا لنا غرفة لكتب القراءة والمطالعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan mahad guud iyo mahad gaar leh allihii ina abuuray waxaan kale u mahad celinayaa waalidiinteena la siiyey fursad aan wax ku barano waxaan kale u mahad celinayaa walaalaha jaaliyadda ee noo suurageliyey in aan helno waxbarasho lacag la-aan ah sida hooy waxbarasho oo ku habboon waxbarista iyo manhaj tayeysan iyo macallimiin markasta joogto ah. waxaan nahay jiil aad u nasiib badan aniga oo ku hadlayo codka ardayda dugsiga hoose dhexe ee buraa waxaanu leenahay guulaysta cid kasta oo ka qayb qaadatay waxbaristanada waxaanu yeelanay han aad u sarreeyo kaasoo ah inaanu helayno waxbarashadanada dugsiga sare innaga oo joognaha guryahanaga waxaanu leenahay allah in barakeeyo wabilaahi towfiiq. ururka dhalinyarada ururka hooyooyinka dhammaan aagga buraa joogta dadka ka soo qayb galay xafladan maamuuska weyn leh baan ka salaamaya afka guddiga waxbarashada tuulada buraa anoo ku hadlahaya waan u mahad celinaya ilaahay baa mahadsan marka koobaad
marka waan intaa ka soo qayb gashay xafladan qiimaha iyo qaayaha leh baan u mahad celinayaa. marka saddexaad anoo ku hadlaya afka guddiga waxbarashada tuulada Buraa iskuulkan wuxuu furan yahay filayaa nimanka walaalahana oo diyaasbarada intay noo fureen 2 sano buu noo socdaa bishii sanadkii 2017 ilaa 2018 buu noo socdaa. fasalada hadda maxaa horeeya afraad waxa kale waa ka hooseeyaan. intaas waxbarasho tayo leh baan helnay joogto ah aan lahayn macallin fakanaya aan lahayn cunug goynaya aan lahayn baan ka helnay walaalahanu. aad baan ugu mahad celinaynaa waxay noo qabteen waa ku mahadinaynaa. ilaahay baa mahadsan waan ugu ducaynaynaa in aakhiro ilaahay ka abaal siiyo walaalahoodka ay watageen dalka ay wax ku bartaan. walaalayaal ilaahay baa mahad iska leh ilaahaygaas oo naga dhigay dad islaam ilaahay oo na waafajiyey inaan aayahanaga ka tashano ubadkanaga aan u raadino waxbarasho iyo aayo. waxaa mahad labaad iska leh walaalahanaga jaaliyadda oo arrintan si aan hagar lahayn wax noogala qabtay. waxaan filahayaa hadda inaan la soo koobi karin waxa ay noo qabteen walaalahanaga jaaliyadda. meeshaan waa isla ogeen awal waxa ay ahayd aad iyo aad ayay u hoysaysay. waxay noo bilaabeen inay noo dhisaan hoy dugsi hoose dhexe ayadoo carruurtii ay noo joogaan ayay haddana waxay noo bilaabeen in ay noo dhisaan dugsi sare. waxay diyaar u yihiin hadda oo aad ay ugu diyaarsan yihiin ilaa heer jaamacadeed inayna wadaan. waxaa weeye ma soo koobi karna hadda waxyaabaha ay walaalahanaga jaaliyadda ay noo qabteen wax meeshaan ku soo koobi karna ma aha. waxaan u mahad celinaynaa oo bulshadaas ay ugu garab istaageen jaaradihii ay ugu garab istaageen bilicda muuqashada iskuulka iyo aqoontaba way ugu garab istaageen. waan u mahad celinaynaa waxaana ka codsanaynaa in fara badan ka codsanaynaa annaga oo ku garab taagan inay noo badiyaan macallimiinta ay noo badiyaan iyo qolalkaba ay noo badiyaan inta ka dhimanbo. in fara badan baan walaalaha iyo u mahad celinaynaa. annaguna si sharaf leh baan carruurta haddaan nahay hooyooyinka baan annaguna ugu soo baraarujinaynaa ugu garab istaagaynaa. walaalaha yarna waxaanu ka codsanaynaa in ayna naga dikaamin ilaa heer jaamacadeed wixii taalkooda ah ay aad noogu taakuleeyaan. waxaan kaloo u mahadnaqaynaa dadka jaaliyadda oo islaamka ah oo suuro geliyey ama juhdiga iyo waqtiga iyo ku bixiyey dhaqaalaha iskuulkan Buraa. anoo ku hadlahaya dadka bulshada Buraa kuwa iskuulka dhigtay iyo kuwaan dhiganba anoo ku hadlahaya magacooda waxaan mahad ballaaran u celinaynaa dadka jaaliyadda oo u istaagay inay hormariyaan dadkan aan dawladda lahayn oo shacabka ah oo maatada oo waxbarashada lahayn oo iskuulka lahayn oo aan horukaca iyo nolosha fiican lahayn inay dhibkooda iyo baahidooda ka damqeen una istaageen juhdi iyo waqtina ku bixiyeen. waxaan goobjoogo ka ahay ama aan markhaati ka ahay waxbarasho hufan dugsi hoose dhexe guryo dhisan nidaam kala socdo. mahad celinaynaayo iskoolka iyo caawimaadda naga caawiseen waa idinkaga mahad celinaynaa. waxaan kaloo idinka codsanaynaa biyaha naftooda inaad naga caawisaan. biyo la'aan baan nahay biyaha naga caawisaan qoladiina dibadda anugu idinka mid ma yahay hadde waa idinka tegey inaad biyaha naga caawisaanna waa idinka codsanaynaa. caafimaadkii waa ku celinaynaayo inaad naga caawisaan waa idinka codsanaynaa. salaan ka bacdi ujeeddada halkaan isugu kaana keentay in wax barato iyo in wax dhashay iyo in wax bartaba waxaa weeye muhiimadda iskuulkii Buraa ee primary school furitaankiisii maanta waad ogtiin oo iskuulku uu xirnaa dhismaa ka socday dhismo ayatiin laha ka socday inaan maanta furno oon ardaydii iyo macallimiintii khayr allaha siiye wax baraysay aan idhaahno hoygii wax laynkugu bari lahaa waka
idinkuna waxaad ku baran lahaydeen, idinkuna waxaad ku bari lahaydeen, ardayduna waxay ku baran lahayd. taa ilaahay baa mahaddaa leh. waxaan rabaa 3 qodob inaan xuso, dhanna waalidiinta ah, dhanna macallimiinta ah, dhanna ardayda ah. waxaan leeyahay marka koowaad, mas-uuliyadda koowaad waxaa qaadanayo in dadkaani iyo hoygan wax lagu barto waalidiinta yaryarkan iyo ubaxan soo koraya dhalay. maxaa yeelay qofkii dhalay yaryarkan oonan dugsi u dirsanin, oonan macallin ku xirin, asagu iskuma xiraayo. marka koowaad markuu waalidkii wax dhalay uu yidhaaho wiilkayga ama gabadhayda waxa la ii baro, markaas ayuu macallinkii wax bari karaa, baraarujin karaa. waxaan leeyahay waalidiintow, maanta fursad baad haysataan, fursaddaasoo ah in ciyaalkiinnii aanu wada dhalnayn, nala dhashay, ay wax bartaan, mustaqbalkana buraa wax ka beddelaan, mustaqbalkana iskuulkan wax ka beddelaan, mustaqbalkana deegaanka iyo magaca uu leeyahay waxay ka beddelaan. xagga waxbeddelka waxa ay markhaati ah xariishkan hortayda ka muuqda siduu u egyahay. kuwa aan taagannahay oo naga horreeyey oo rabbi raalli ha ka noqday nimankii jaaliyadaha ugu horraysay ay dhiseen, iyo kaa kale iyo kanoo ku xigo. taasaa u macallina, xariishkaana u macallina, aragtidaa u macallina, tayada ardayda u macallina, macallimiinta jooga tayadooda u macallina, ardayda aan ka jariircooday markay language English ama tiiba carabi ama af Soomaali tayaysan ay noo sheegayeen baa ayaa maxaan ku dhahay ka markhaati ah. waxaan leeyahay marka deegaanka buraa, dadka deganow, maanta fursad baad haysataan. fursadduna haddaan laga faa'iidaysanin ayadu kuma faa'iideynayso, kugumana noqon, dibna kuguma soo noqon doonto, way kaa soconaysaa. fursaddan intaan haysanno, ciyaalkeennu aynu 3 u qaybinno, 2 meelood oo ka mid ah aynu wax barno, 1 meelood oo ka mid ah inaan waxna u dirsanno oo ina noo adeegaan, hadday xoolo noo raacayaan iyo hadday noo xoojinayaanba aynu qayb aan ka siino xooggaas, qaybta kalena aan dib ugu soo celinno waxbarashada. taas horta waa dhanka waalidiinta. dhanka macallimiinta ay soo haray, ilaahay ka baqa, waxayna hoos joogood wax baraysaan waa ciyaalka yaryarka ah oo dasheen. wixii maanta aad ku bartaan ayay deegaankan wax uga beddelayaan. waxaad maanta bartaan ayay wejigooda yeelan doonaan. waxaad bartaan bay deegaanada kale la tegi doonaan oo ay kula xisaabtami doonaan, ayaga jiilkooda ama fasalka ay la midkahoo ka imaanayo maxaan ku dhahay degmooyinka kale ee gobolka. waxaa laynka rabaa in la yidhaaho sida imtixaan dugsiyeedkii iskuullada markii la qaaday, waxaa miidiyaha ku jirto iskuullo gooniya, magacyo gooni ah leh, sida iskuulladaasoo kale magacyada gooniya Soomaaliya oo kale in la yidhaaho primary buraa school, ardaydii tayaysnayd oo halkaa ka soo baxday. taa waxaa xoojin karo, mar walbana isu dhabarjebin karo macallimiinta ugu horreeya, maamulaha iyo qaybta guddiga waxbarashada. waxaan leeyahay ardadan markaa u soo noqonaya, ardaydow yaryar baa tihiin, maanta ma ogidiin waxaad baranaysaan iyo muhiimadda ay leedahay iyo maxaan ku dhahay qiimaha aad yeelan doontaan. wiil yar baan waraystay oon aad u jeclaystay, waxaan idhi 3 qodobkeed noqonaysaa macallin wax baro oo deegaanka inta hadda adiga wax ku barayso wax barto, takhtar inaad noqoto oo nin takhtar oo dadka daaweeyo noqdo, hooyooyinkii naga dhintay oo kale allah u naxariistay iyo inta xanuunsan camal oo kale daaweyso, injineer dhulka noo cabiro, guryaha noo dhisa, keed noqonaysaa. wuxuu yidhi macallin baan noqonayaa oo sida macallimiintayda ay wax ii barayaan ayaan maxaan ku dhahay dadka wax u bari doonaa.